gabadhan waxay weydiinaysaa sheekh hadduu waalidkaaga kugu qasbo oo ku dhaho ama duco qaado ama habaar qaado ninkan guurso haddii aad diiddo waan ku habaari ama aad duco qaado ama habaar qaado marka maxaan sameeyaa oo anigana aan ninkii rabin guurka wuxuu ku salaysan yahay sidiisaba ridu ku salaysan yahay waa in ninka gabadha guursanayana uu ku qanco gabadhu guursanayo saas daradeed baa nabigu ku yiri soo fiiri ma iska fiirisay waa inuu ku qanco gabadhana ama haweeneydana cidda guursanaysa waa inay raali ku noqoto sidaas daradeed baa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam gabadhu hadday bikra tahayna idan baa la weydiin inay raali tahay hadday garoob tahayna amar baa la weydiin waxay u kala duwan yihiin gabadhu way xishood badan tahay hebel ma lagu guuriyaa haddii la yidhaahdo inay aamustaa dhici karayso aamuskeedu waa ogolaansho buu nabigu sallallahu alayhi wasallam maadaama ay xishoonayso ama garoobtu hore bay wax u soo martay waa inay amar bixiso aamus laga yeeli maayo inta may ku kala duwan yihiin labadooda waxaa ka dhaxeeya guurku rida la'aan ma dhaco waa inay raali ku yahay ruuxu ciduu guursanayo hadduusan raali ku ahayn waalidkuba qasbi karaan laa aabbaan qasbi karin walaa cid kalean qasbi karin walaa hooyaan qasbi karin waalidku masalada la doonaya inuu fahmaa waxay tahay haddii ninkan aad gabadhaada u guurinayso aad adigu ku qanacday adigu xaas u noqon maysid adaa ku qancay Soomaa adigu xaas u noqonaysa iyada xaas u noqonaysa ayadii hadayna ku qanacsanayn guri ayna ku qanacsanayn aad geyso seeba gurigaas u dhisnaanaya sax ma saas daradeed waalidku waa inuu tixgeliyo ilmaha iyo caruurta guurkooda inay raali ku yihiin cid ay guursanayaan sax talada ilmuhu gabadhu lama madax banaanaan karto oo intay waalidkeed ka tilaabsato cid ay doonto iskama guursan karto waalidkuna gabadha ma qasbi karaan oo inayna rabin kuma qasbi karaan haday yiraahdaan ilaa waa ku habaarayna habaar iyo duco qaado oo habaarka in la aqbalo soo ilaahay inuu aqbalo ma hadaad si khaldan ku habaarta laga yeeli maayo maanta dhan habaar oo lacnad hadaad rabto yaa ka yeelay waad khaldan tahay waalidku waa khaldan yahay sidaas daradeed waalidku waa inuu garto muxuu xaq u leeyahay oo ilmaha xaq uu ku leeyahay muxuu yahay iyo muxuusan xaq u lahayn haddaad ilmihii ku maagtaba kula dagaalanto waxaadan gar iyo kula hayn aadan ku saxsanayn adaa khaldan marka waalidka u baahan la qabto sidaas daradeed guurka gabdhaha la guurinayo waa in la tixgeliyo gabdhuhu ciday guursanayaan sax waalidku waa inuu ka fiiriyo diintiisa akhlaaqdiisa ma dhaqan karaa waa in laga baaraandago laakiin haddana waa in khiyaar la siiyo ay iyadu ku qanacdo hadayna ku qancin lama qasbi karo waalidku ma qasbi karo wala aabo wala aqeyrki toona ma qasbi karo in la qasbana ma in lagu habaaro lagu cadaadiyana ma saladaas mas'ala saxa ma ay aha haday dhacdo oo waalidku yiraahdo ilaa guurso waad iska tanaasuli kartaa oo ducada waalidka intaad iska qaadato waad iska guursan kartaa laakiin waad diidi kartaa hadaa diido habaar kugu dhici maayo sababtu waxa waa qalad ba in lagu habaaraba qalad wallahu a'lam